madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay maanta waxa uu booqday xabsiga dhexe ee Muqdisho halkaas oo ay ku xiran yihiin kumanaan ruux oo Soomaali ah oo iskugu jira dambiilayaal iyo waliba eedeysanayaal. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa intii xabsiga dhexe ee Muqdisho uu ku sugnaa waxa uu indheeyay maxaabiista halkaas ku jirta isagoo dhanka kalena kormeer ku sameeyay qalabka farsamada gacanta ee halkaas dadka maxaabiista wax lagu baro. kormeerkiisa kadib ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda xaflad kooban oo loogu sameeyay gudaha xabsiga dhexe waxa uu warbixin halkaas ku siiyay taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe. xabsigana mudan madaxweyne waxaan ku sheegayaa inay ku jiraan 70% al-shabaab waxa ku jira 170 in ka badan dad dil ku xukuman waad garan kartaa 1209 baa saaki xabsiga ku jirta 1750 ka mid oo shabaab waad garan kartaa marka mas'uuliyadda intaas leeg iyo culaabta ay hayaan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkaas khudbad ka jeediyay waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa carruurtii ay soo barbaariyeen xanaanayn jireen ciidamadii asluubta Soomaaliyeed isagoo taa ka duulayana waxa uu si adag uga hadlay in la xanaaneeyo carruurta dugsiga agoonta ku jira degmada Afgooye ee ciidamada asluubtu ay gacanta ku hayaan. ciidanka kaliya oo ah ciidanka kaliya oo aqaano oo waxay ka soo barbaariyay wax yar yar rabaana waxaan ka sheegay intaan dadka salaamin ka hor wiilkii yarka ah oo hor wiilkii yar waxaan ugu yeeray wiilkan kullayba hadda waxaad ku jirtaan barbaarinta agoonta oo runtii sidii ahaan jirtay awalba dadka saboolka carruurta laga qaado oo loo barbaariyo loo koriyo waxbarasho loo siiyo nolol loo siiyo waxaan ka codsanayaa dadka barbaarinaya intaas saxan carruurtan calooshooda inay taabtaan horta maxaa yeelay ciidamada suubtii ahayd iyo taliyaashii la foolay joogi jiray allah ha naxariisto qaarkood waa dhinteen calooshiina intaas u taaban jireen sidii aabayaasheen oo kale yaan ugu sheegi jirnay inaan gaajaysan nahay iyo dhibkaan qabno iyaguna waxay noo xanaanin jireen sida carruurtooda kale marka wiilkaan iga warqaba. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ka hadlay isla markaana oo kula dardaarmay taliska ciidamada asluubta Soomaaliyeed gunooyinka iyo waliba raashinka la siinayo dadka maxaabiista iyo waliba dadka kale ee gacanta ku hayaan ciidamada asluubta Soomaaliyeed isagoona ballan qaaday in ciidamada asluubtu ay heli doonaan waxyaabaha ay xaq u leeyihiin si ay bulshada si huf. Axmed Cumar Honkable TV Muqdisho.